shirkaani waa shirkii beesha Tanade oo muddo soconayay oo daba socday shirarkii hore gogashaan waxaa dhigay beesha Tanade waxaa nagala qayb qaatay oo nagu caawiyay oo macnaha waxa weeye isimada isugu yeeray dhammaantood madaxweynaha dowladda Puntland sidaa daraadeed waxaan leenahay soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada dhammaantiin baan leenahay ajenduhu waad arki doontaan macnaha waxa weeye waraaqaha loo qaybshay bay ku qoran tahay insha Allah daaliyaad bay ku qoran tahay waxa looga hadli doonaa oo la isugu yimid oo looga hadli doonaa waa gogasha beesha u taala insha Allah daaliyaado waxaan jecelahay oo aan macnaha waxa weeye dawladda iyo isimada dhammaantood waxaan ka codsanaynaa mar labaad in la ku tixgeliyo nala kuna xushmeeyo gogasha noo taala codsiga iyaga iyo tabashadayadana si qiimo leh oo qadarin leh oo walaalnimo leh oo tolnimo leh oo derisnimo leh oo dawladnimo leh loo fiirsho sidii macnaha waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekhiina ka horeeyay waa sax weeye cadaaladdu waxay ku dhisan tahay in macnaha waxa weeye walaalka iyo walaasha iyo qof kasta inaad cadaalad samaysid bay ku dhisan tahay marka waxaan filayaa maanta looma maqna wuxuu yiri macnaha waxa weeye ceello oo maqna cidna oo maqna waxaan filayaa maanta intaas hadday isugu timid oo maanta gobasheeda intaas isugu timid sharafta inta isugu timid inaan maanta waxana weeye ayadoo macnaha waxa weeye hawshaasi dhamaatay oo lagu heshiiyey oo gacanta la istaartay inay dhammaan doontaan yaan qadarinayaa insha Allah ilaahayna waan ka baryayaa marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad walaalayaal soo dhawaada waan ku soo dhaweynaynaa gobashaan waxa gobashiina weeye ehelkiini baan nahay tolkiin baan nahay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warnimo iyo meesha idinka dalka idinka u madaxa billaah idinka u madaxa ayawada kureenkii baati anagu raacid baan nahay ismada Puntland sayadana waa tiriyado 7 ka nool waa wada dhinteen raga darsamada jooga 7 ka nool 7 nool waxa weeye 3 muduga 2 nugaala suldaasi Maxamed Garaase aniga yeena hadii iyo daba gooyi to intaas ka nool rayga wada dhintay nina mid qaar lowsana waa laga yaabaa markay soo joogo waxa la soo soco baa loo baahan yahay hadda hadalka waxa ay gayadama wariyo ku tagaan oo yiraahdaan waxa loo baahay qolada in raali galiyo in wax loo qabto wax soo waayaan hadda waxa oranayaan ismadan hor taagan madaxweyne iyo kuleenku waa noo ogol yihiin halka hadalka waxaan uga jeedaa warnaayo nimanka leelkase haddii aanu wuxuu qaban karayno waxbay tawdeen waxaana loo kordhiyay yiraahdeen baarlamaanka labaanu ku leebay yiraahdeen waxaana loo ku siyaadey yiraahdeen waxeeba maay oran tolbada waxa ku dhalataa waxa la waa tolba xumo dadoo laguma soo celiyo salugoo laguma kordhiyo midka loo ku degtay anigu waxaan leeyahay haddii wada joognaayay madaxweyne iyo ku xigeen iyo odayaal haddii nimanka waxa loo kordhin karayo ilaa anaga haduu midhaan noo dhiibinay loo kordhiyaan ugu leedahay ha loo kordhiyo ha la isteego si soorka haddii la furayo ha loo furo warnimayo hadalka cad baa loo baahan yahay war madaxweynow iyo madaxweyne ku-xigeenow maamulka idinka ka madaxahe haddii nimanka dastuur loo furi karayona ha loo furo dhaha war maa caddeeya haddii aan la furi karayna waxba la furi karma hadday socon maayaan dhaha baarlamaanka idinka warhaya dastuurka idinka madaxdiisii guuda haddii wax la furi karayaan dhaha loo furo oo waxay tabanayaan wax laga siiyo haddii aan la furi karayna annagana aan cadibina iyagana ha lugoynina salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaan waxaan siinayaa insha allahu suldaan Garaase oo ah isimka hadde dhaqanka oo dhan hadda marti iyo gurigiisa jooga mudane suldaan ku soo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay noqoto gogasha tani gobol khayr intii aan wada joognay waa wada joognay inta gobollada ka timi oo gobolku koodii yahay laakiin laga yaabo caawa inay hudheel la seexdeen waa soo dhawaynaynaa waana u mahad celinaynaa intaa kadib ilaahay dembigeen iyo kii waalidkeenba ha dhaaf bele dhammaanteed allah inaga xijaab khayr dhammaantiisna allah inoo fur
taladeennana abshir allah ka dhigo ilaah waxaanu kaa baryay rabbiyow wixii khayr ahaayo nebi maxamed kaa baryay baanu kaa barin ilaah waxaanu kaa magan gallay rabbiyow wixii shar ahaa oo nebi maxamed kaa magan galay baanu kaa magan gallay allahuma salli calaa muxamed subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuuna wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin faatixa bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan rabaa kelmad yar intaana madaxweyne ku-xigeenka ku soo dhoweyn kelmad inaan halkan ka idhaahdo sida aad la socotaan puntland waxaa la dhisay 1998 ujeeddadii loo dhisay waxay ahayd in dadku maamul helo inuu kala dambeyn helo inuu golayaal dowladeed helo in uu cadaalad helo in uu Soomaali iyo dowlad federaal raadsho inta axdigeenni baa ku qoraa axdigaasi wuxuu sheegayay golaha wasiirada markaa la dhisay 9 bay ahayd 9 ka wasiir ku-xigeen ma jirin DGA lahaayeen ama maxaa la dhahaa agaasimayaal guud waxaa timid culays siyaasadeed oo lagama maarmaana madaxweynihii dalka markaa hogaaminaya allah u naxariisto Cabdullaahi Yuusuf ayaa golaha baarlamaanka yimid wuxuu yiri waxaan codsanayaa hal wasiir ku-xigeen in la ii ogolaado oo buuhoodle aan u rabo dastuurkii baa la furay waxaa lagu daray Axmed Aadan Carab way socotay waxaa yimid waa taabanaya wixii isbedelka baahida waxaa yimid odayaashii iyo cuqaashii reer Puntland qayb ka mid ah oo codsanaya in dastuurka loo furo oo goboladu waatay 5 gobol iyo degmo ahaayeen waxay codsadeen in dastuurka loo furo laguna daro gobol la yiraahdo Karkaar waa la furay Karkaar baa lagu daray waxaa yimid beel socota oo codsanaysa in la furo dastuurka laguna daro gobol la yiraahdo Cayn waa la furay waana lagu daray waxaa timid beel soconaysa oo le maanta dastuurka in loo furo ayaan doonaynaa oo nala kugu daro gobol la yiraahdo Haylaan waa loo furay waana loogu daray waxaa yimid beel socota oo codsi wadata oo golayaasha dawladda u socota oo codsanaysa in dastuurka la furo oo loogu daro gobol la yiraahdo Haylaan waxaan uga jeedaa intaas dastuurku markasta baahidiisu waxay la jaan qaadaa oo lagu abalay gareeyaa ama lala socodsiiyaa baahida mujtamaca ka imaanaysa wax kasta oo laga maarmaan u arag oo culaab ah oo ama isimada ku yimaada ama madaxweynayaasha ku yimaada oo shacabka ka yimaada tixgelinteeda ay leedahay waxaad ogtihiin Puntland 5 gobol iyo degmada Buuhoodle meesha hadda degmooyinkeenu maraya waa la socotaa waxaan taa uga jeedaa dastuurku wuxuu u hoggaansan yahay masaalixda ummadda haddii la furo dhagaxan soo daadan maya waa la furi jiray waa lagu dari jiray waa la furi jiray waa lagu dari jiray taa waxaan uga jeedaa codsiga beesha oo ahaa dastuurkana ha naloo furo 15 xubnoodna ha naloo ku daray isimada arrintaa u gudbiyeen marka furitaanka dastuurku waa keeni isimada dawladda waxaa mar walba lagu hagaa oo lagu toosiyaa masaalixda markaa taagan iyo baahida taagan aayad quraana maaha mar walba marka waxaan u jeedaa arrintaasi inaan loo arag wax weyn oo mushkilada waa wax jiri jiray oo inta jeeroo la furay markay u yaraato aad iyo aad ay u tiro badan tahay haddana insha Allah waa la furi doonaa waana la wadi doonaa arrintan kaliya furitaankeeda codsigeeda ma ahan maalin walba baahidu imaanaysa maalin walbaana la furaya waayo masaalixda dad ayaa lagu hagayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin kelmadda yar raalli ii ahaado aan dhex gashaday waa la socotaan axdigii Cabdullaahi Yuusuf jannada Allah geeyay 3 sano la doortay 3 sano markii la doortay baa waxaa la yiri mucaarad badanina wuu jiray waxaa aad loogula dagaalamay qoritaankii axdigii 35 qodob ah waxaa la yiri Cabdullaahi waa lagu doortay waxaa laga rabaa dastuur cusub inaad sameysay 3 sano gudaheeda dastuur waad ogtiin dhibtiisa iyo mushkiladiisa waxaa kaloo laga rabaa 3 sano gudahooda dadka Puntland ku nool kulli inaad tira koobtid dadka tira koobkiisa wax fudud ma
bajar iyo kharash iyo wuxuu u baahan yahay hawl badan sanawaad buu u baahan yahay waxaa la yidhi waxaa kaloo lagaa rabaa dhulka ciidama isla jiro cadow badan baa yimid meel walba miinaa ku aasan doorasho dhici mayso dhammaan miinada ka gur waa 3 sano gudahood loogama harin waxaa la yidhi dhammaan dadka Puntland hubka dhigis ku sameey 3 sano iska dhamaatay iyadoo aan alla dastuurkii baa la sameeyay dastuur 100 qodob baa la sameeyay intii kale aan far la saarin baa 3 sano dhamaatay wixii ka dhacay baa ka dhacay inta ku dhimatay Allah u naxariisto mar haddaa intaa iri briefing yar oo aan bixinayay ahaayeen maadaama insha Allah ummadii Puntland dhistay oo waagaa joogtay boqolkiiba waxa la oran karaa 70 aakhiray aad xabada ka sii warig la anigu aan ku jiro maalintii la dhisay ilaa maanta waa taagnaa ilaahay baa mahadle mar haddaan intaa iri waxaan ku soo dhawaynayaa madaxweyne ku-xigeenka mudane cabdixakiin cabdullaahi cumar camil mudane madaxweyne ku-xigeen falyatafadal kelmadaadi cabdirashiid baan la kaftamayaa intii aan la ridin ka hor magacayga wuu xusuusnaa laakiin maanta waxba ugu qaadmaayo waa saaxiibka iyo magacaygiiba ilaaho waa kafta weeye waa saaxiibkay madaxweynaha iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan runtii quruxda badan waa salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan runtii u bogaadinayaa marka ugu horeysa beesha tanade ee shirkan soo agaasintay ka soo shaqaysay quruxda leh isu keentay ismadii reer Puntland taasoo uu gacan ka geystay isagana aan uga mahad celinayo madaxweyne Cabdiwali ismadana waxaan uga mahad celinayaa ajiibida ay soo ajiibeen iyadoo halkan markaynu seegno boqolkiiba 90 iyo ka badan ismadii reer Puntland dhammaan ay maanta ku sugan yihiin hoolkan ama qolkan aynu maanta isugu nimid ilaahay waxaan ka baryayaa ducadii hore la duceeyeen inuu inoo aqbalo taydana inuu ku daro ilaahu mid khayr qaba nooga dhig waxaan u malaynayaa ajandaha isugu timaadeen de hal mid uun buu ah laakiin mar haddaad isu timaadeen waxaan idinka codsanaynaa inuu ka bato wixii aad isugu timaadeen waxa weeyaan beesha tanade runtii tabashadeeda yaa aasaas iyo gundhig u ahayd maanta inaynu halkan dowlad iyo isimaba iyo shicibba aynu isugu nimaadno waxaan dareemayaa haddii hadal runtii wax ku ool la odhan lahaa cabdirashiid baa dhameeyey sababta u dhameeyeyna waxa weeye dalkani wuxuu leeyahay constitution sharci buu leeyahay sharcigiisana waa sharci u adeega bulshada ku salaysan xilliga markaa la samaynayo iyadoo laga fakarayo xilliga soo socda maalintii dhaweydee xildhibaanadu iyaga oo isticmaalaya constitutionka ama rightska ay u leeyihiin yaa nin baa ay soo wacay reer Hargeysa markaasuu yiri waryaahe madaxweyne ku-xigeen waa maqalay waxa idinku dhacay waa ka xunna waxaan ku yiri waxba naguma dhicin anagu dawlad guuna oo 19 jirsatay dimuqraadiyada baanuna laakiin idinku waxaa tiin dawlad caadifad iyo qabiil ku dhisan waxaan ku yiri maanta nin reer Puntland hina wuu la joogay maanta haddii waxaan annaga nagu dhacay idinka idinku dhici lahaayeen ka waran wuxuu toori baan suuqa iskala daalilahay marka waxaad dareemaysaan dalkeennu waa dal dimuqraadiya runtii lagu bogaadiyo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkuba ay ku ixtiraamaan taariikhdiisuna waa caddahay halkaa waxaa ka muuqda markii hore Puntland markii la sameynayay geedkii quracaha iyo odayaashii ismadii oo fadhiya maantana halkii baynu isugu nimid geed uun baynaan fadhiya constitutionka dalku sidii Cabdirashiid ba u yiri markii loo baahdo amendment baa lagu sameeyaa ama wax ka bedel baa lagu sameeyaa ay loo baahan yahay in lagu sameeyo waa ku qasbanahay dawlad guuna oo dimuqraadiyada baynuna
isimada waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan leeyahay tabashada tanade daarood baan odhanayaa anigu nin daarood afkiisa mariyey igu horreeyey ma jiro laakiin marka tanade la yidhahda meel walba waa la garanaya in tabashadooda wax laga qabto oo si dhaba aad wax uga qabataa baa loo baahan yahay xukuumad ahaan dee isimadii baa tihiin xukuumadda iyo isimada iyo shicibkuna waa isku mid iyo golaha wakiiladu intaba balibana halkaa waxaa ku qoran tabashada beesha tanade ee golaha wakiilada waxay la tahay mar haddaad isu timaadeen wax buntlandna u wanaagsan tanadana u wanaagsan dowladnimadeennana u wanaagsan inay ka soo bixi doonto insha allah shirkiina waana idinku bogaadinayaa runtii waana idin taageersannahay ilaahayna ha idin fududeeyo waxaan jeclahay inaan madaxweynaha ku soo dhaweeyo kelmadiisa khudbadda inteeda badan isagaa lahaa madaxweyne ku soo dhawow aad baan idin salaamayaa dhammaantiin sharaf weyn bayna noo tahay inaan idinkala soo qayb galno shirkan iyo madashan ay isugu yimaadeen madaxdii dhaqanka ee puntland waan ka mahadnaqaynaa martiqaadka idina imaatinka iyo soo ajiibidda aad timaadeen dalabka ay dalbadeen walaalihiin inaad timaadaan meelo fogfog ka timaadaan danihiinna khaaska aada uga timaadaan oo ka soo qayb gashaana waa ka mahad celinaynaa waan ku mahadsantihi runtii waxaan u malaynayaa waa markii horreysay oo intaan anugu haddaan joognay maamulkan ismada puntland ay shir noocaan oo kale isugu yimaadaan dabcan meelo kale oo ama calamasaare iyo oo la isugu tegaya waa jiraan laakiin shir isimadu ay dhammaantood ama badidood yimaadaan waa markii horreysay waana ka xumaa inay saa ahaato sababtoo ah dabcan isimadu dhisitaanka puntland iyo jiritaankiisa hadda iyo midka soo socdaba buddigay u yihiin waana u muhiim marka xataa in la isu yimaado mararka qaarkood ood isu timaadaan annaga xukuumad ahaan nama garansiin inaanu mararka qaarkood isuukin yeerno laakiin inaad idinku isu timaadaan oo aada wada hadashaan oo maslaxadda guud ee dalka la isugu yimaado sanadkii mar allah ka dhigay waa wax runtii aada wanaagsan bay ilaahaan lahay waana jeclaan lahaa hadda wixii ka dambeeya isu imaatinkiina iyo wadatashigiinu inuu sii socdo runtii muhiim bay noo tahay puntlandna muhiimad weyn ayay u leedahay sida in badan ka sharqamisay jiritaanka puntland iyo aasaaskeedii idinkaa saldhigu ah idinkaa buddiga u ah inay midnimadeeda sii sugnaato isjacaylkii iyo marxabeyntii dadka puntland ka dhexeeya sii socdana weli mas-uuliyaddeeda idinkeeda saaranta qofka siyaasiga ahi waana imaanaya waana tegaya laakiin idinku mas-uuliyad kale oo aan dhammaanayn qofku dee ilaa uu dhinto mooye ayaa idin saaran waqti dheerna waad joogaysa saas daraaddeed socodka taariikhiga ah ee dowladnimo ee puntland cidda marxalad walba la joogta waa idinka wey saas ayay runtii muhiim u tahay inaad isu timaadaan iska warqabtaan maslaxadda caamkana ka wada hadashaan puntland waxay maraysaa meel wanaagsan dhan walba markii laga eego waxaa ka socda horumar aada u xoog badan oo ballaaran horumarkaasi meeshaan kama hadlayo dowladda ayaa maalin walba ka hadasho oo munaasabadeedii ma ah laakiin waxaa loo baahan yahay inaan isxasuusino in aan mashaariic horumarineed oo nooc walba ah ayaa dalkeenna maanta ka socda jidad leh dekada leh gormo diyaaradeed leh dowladnimadii dhismihii haykalkii dowladnimo
dhismayaasheedii oo meel walba ka socda saa hadday tahay waxay dhanna waa ka farxado waa wanaag dhanna horumarku wuxuu leeyahay dhibtiisa iyo cadow badan bay yeelanaysa meesha aan ku naalo strategically ay Puntland ku taalo waxay muhiim u tahay jiritaanka midnimada Soomaaliya waxaan ka hadlayo walaalaheena waqooyi inta isu haysa Soomaaliya oo ay maanta Soomaalnimadu ku jirtaa waa Puntland sahaday tahay dabcan wala socotaan oo daafaheeda kala duwan waxa mar walba ka jira xasaasiyad ama mudug ha ahaato ama waqooyi ha ahaato ama bari ha ahaato dan waxaan rabnaa marka in horumarka iyo wanaagga laga shaqeeyo oo horumarkaas ilaahay noo badiyo gacan adagna aan ku qabsano dhanka kalena waxaan rabnaa midnimadeena xuduudaheena wadajirkeena in aanu kaga shaqeyno oo dalka la isu hayo oo Puntland oo xoog leh oo wanaagsan ay jirto cadooyada kala duwan oo jirana aanu hadda meeshan kaga hadlama munaasabadeena sidaan sheegay maaha laakiin waa isxasuusin in wadanku markii nabad laga hadlayana waad garan kartaa dabcan dowladdu inay ciidankeeda iyo awoodeeda iyo qalabkeeda ku ilaaliso waa muhiim laakiin haddana shacabkeeda oo idinku aad hormuud ka tihiin oo aad hogaamiye u tihiin haddii aysan ayagu markaa aysan xoogga iyo usha xoogga aysan ayagu ahayna dabcan lama helayo nabadgelyadaas insha Allah marka waa jihaysanay Puntland waxaan u jihaysanay dhanna horumar laga shaqeeyo dhanna nabadgelyo iyo midnimo aan ka shaqeysano waxaan sidoo kale ay rabana sheego aan ku celiyo inaan u baahanahay inaanu dib u cusboonaysiino axdigii aan galay 98 wax kastaaba dib u cusboonaysiin bay u baahan yihiin 19 sano ayay hadda ku sii dhowdahay marka inaanu dib u yagleelo oo dib isaga u aniraano maxaa noo qabsoomay maxaa naga bacsamay xageen joognaa xageen u soconnaa waa laga maarmaan bay la tahay taas way sababta aan leeyahay in la isu yimaado oo ismo iyo dawlad si dhow la isaga warqabaahi taas ayay muhiim u tahay haddaan ka hadlo arrintan maanta meesha la isugu yimid runtii waan soo dhaweynayaa codsi baa ismada iga codsadeen qaarkood in aan u yeero ismada codsi ka yimid beesha talada daarood waana ku mahadsantihiin inaad shirka si mug leh oo wanaagsan aad u timaadeen uga soo qayb gasheen waxaan rabaa marka inaan runtii wax ka iraahdo in beeshani laba siyaaboodba muhiim Puntland ugu tahay waxay muhiim ugu yihiin difaaca iyo jiritaanka Puntland muhiim u yihiin midnimada Puntlandna muhiim ay u yihiin maraba marka inaan sii faahfaahay laakiin kulligiin odayaal baa tiro wada garanaysa difaacana muhiim ay noogu yihiin midnimada Puntland iyo jiritaankeeda muhiim ay noogu yihiin waxaa jirta marka tabasho ka jirta dhanka matalaadda shacbiga oo baarlamaanka tabashadaas mudday soo jirtay waana soo socotay waxayna u baahan tahay in wax la iska yiraahdo lagana jawaabo dabcan maanta ayaga ayaa talada ayaa gubashaan dhigtay dad badan oo dulman baa jira laakiin waqtigeeda iyo timekeeda ayaan ka hadlaynaa gubashu cid baa dhigatay marka ayada tooda ayaa rabaa inaan wax ka iraahdo marka waxaan rabaa arrintan
xajmiga ay leedahay iyo jawaabtiinu micnaha iyaga ay u samaynayso qalbigooda u samaynayso niyadooda u samaynayso midnimada ay u samaynayso inaad qaadataan baan idinka raba anigu marka madaxweyne ahaan waxaan aaminsanahay tabashadaasi inay tahay mid dhab ah waa ilaahay horti anigu hortiina idinka mari laakiin xaashina ma qoreen idina isuma kin yeerin haddaanan aaminsanayn inay dhab tahay waxaan rabaa marka wax laakiin aniga gacanteeda ku jira ma aniga mid gacanteeda ku jirta ma waxaan rabaa marka in laga jawaabo si tangible ah oo xaqiiqiya oo dhaban ah aada uga jawaabtaan arrinta dastuurka iyo furitaankiisa waxaa aada uga hadlay cabdirashiid sidiisaba constitution ama dastuur annaga kolley haddii diinta islaamka iyo kitaabka iyo jaamaca noo ah ugu muhiimsan isaga cadaaladda ka hadlaya wanaagiisa sheekh maxamedna waa ka hadlay laakiin marka sida kale aan u dhigno oo dastuurka noo qoran aan ka hadalno dastuur sidiisaba dowladu markay dhigato waxaa la yidhaahdaa waa living document waxaa weeye waa documenti nool maalintii loo quru dhintay ma aha waa nool yahay waa soconaya waxaa la rabaa taariikh kasta iyo jiil kasta yani amuuraheeda iyo dhibteeda iyo tabashadeeda inuu ka jawaabaa la rabaa waa la bedelaa marka amendments baa lagu sameeyaa wax qariiba maaha laakiin kolle de cid baa awooddeeda iskale waxaan rabnaa marka taa idinkoo og tabashada beeshan oo dhabtaana og soona laaban doonto oo beritana kuwo kale oo duman baa imaan doona ka jawaab bay u baahnaan doonaan tan maanta sidaas aad uga jawaabtaan bayna ku xiran tahay tan dambe sida aad iyada laftigeeda uga jawaabtaan waxaan rabaa marka in aan idinka mahadnaqo imaatinkiina shirkiinana waxaan ilaahay ka rajeynaya inuu guul ku dhammaado wixii kaloo hawlahoo dalku u baahan yahayna hadda markaad tan dhamaysataan inaad wax iska tirahdaan laftigeeda waa loo baahan doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul iyo khayr baa idin rajeynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullah